وقصة كلا oo cajiib ah waxay ku saabsan tahay faa'iidada ducada iyo inaad Allah kaliya wax weydiisato. waaba waxaa jiray dhakhtar la yiraahdo Hishaam oo magaaladii uu joogay kamid ahaa dhaqaatiirta ugu waaweyn ee qalliinka samaysa. safar buu diyaarad u soo raacay si uu uga qayb galo shir ka dhacaya magaalo ka fog. diyaaradii markii ay in cabaara socotay ayaa loo sheegay in diyaaraddu ay degi doonto cillad ku timid aawadeed garoonka diyaaradaha ee ugu soo horeeya. dhakhtarkii markii diyaaradii uu ka soo degay waqti badanna aanu u harin ayuu weydiiyey qoladii diyaaradda xigta waqtigeeda. waxay u sheegeen 16 saacadood. dhakhtarku aad buu u murugooday. wuxuu sheegay in qalliimo badan ay sugayaan, waxaana ay kula taliyeen inuu gaari soo kiraysto si uu 3 saac ugu gaaro goobtii uu doonayay inuu shirka kaga qayb galo. gaarigii markuu in cabaara soo socday ayaa roob cirkii oo dhan isqabsaday. meel walba ceeriyaamo cillad ayaa ku timid gaarigii. kadibna meel tuulaa ayuu ku leexday si uu caawimaad u helo. guri ayuu soo gargaraacay. islaan waayeela ayaa tiri soo gal wiilkaygiyow. markaasuu soo galay. wuxuu weydiistay inay siiso telefoon si uu qolooyinkii wax caawinayay u waco oo markaa loogu soo gurmado. duqdii way la yaabtay. waxay ku tiri annagu koronto ma haysano, telefoonna iska daa warkiis, laakiin waxaan ku siinayaa shaah kulul iyo cunno wanaagsan. markii shaahii iyo cunnadii loo dhigay ayuu islaantii dib u fiiriyey Dr. Hishaam. wuxuu arkay inay Allah aad u baryayso oo markaa meel gooniya fadhiisanayso oo ay ducaysanayso. wiil yarna uu agta ka jiifo. dhakhtarkii wuu soo istaagay. wuxuu dareemay in wiilku xanuunsan yahay. maamadii ayuu waraystay. waxay ku tiri waa agoon ayeeyaan u ahay. aabihii iyo hooyadii way dhinteen. waxaa la ii sheegay inuu u baahan yahay qalliin. dhakhtarka kaliya ee qali karana inuu yahay dhakhtar la yiraahdo Hishaam oo meel naga fog degan. Allah marar badan baan wax weydiistay wuu i siiyey, laakiin markan sidii aan ugu tagi lahaa Dr. Hishaam way ugu adkaatay. laakiin waan sii wadi doonaa ducada. Allah ma quusanayo. dhakhtarkii markii uu intaa maqlay ayuu qalbiga ka murugooday. wuu la yaabay naagtan siday Allah ugu xiran tahay oo ay ducadeeda u rumaysan tahay inay heli doonto. mar kale ayay agtiisa ku ducaysatay. ilin baa ka soo daadatay dhakhtar Hishaam. wuxuu u sheegay islaantii weynayd in dhakhtarka ay raadinayso uu isagu yahay, ducadeediina uu Allah aqbalay maadaama diyaaraddii uu la socday ducadeedii ay joojisay. gaarigiisii ducadeedii ay cillad ku keentay. gurigeediina uu ducadeedii ku soo galay. wuxuuna la yaabay siday mar walba Allah ugu xiran tahay, u rumaysan tahay waxay alla weydiisato inay helayso. dhakhtarkii wiilkii buu soo qaaday. cisbitaalkii buu keenay. qalliin buu ku sameeyey. wiilkii wuu bogsooday. laakiin dhakhtarkii wuxuu ogaaday faa'iidada ducada ay leedahay. waxaana uu bilaabay xilligaa wixii ka dambeeyey inuu Allah mar walba wax weydiisto uu ka ducaysto. yaa ka naxariis badan Allah subxaanahu wa tacaala. yaa ducada aqbal badan oo aan ahayn Allah subxaanahu wa tacaala. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.